Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waxaan rabaa maanta inaan idin tuso sida Facebookaaga aad hawada uga saari lahayd. Ardayda ka mid ah ayaa naga soo codsaday sidee aan Facebookayga aan ku delete gareyn karaa. Waa iska fududahay inaad Facebookaaga delete dhahdo. Marka laba step baan marayaa, hal maaha waa labo. Marka aadba tii kuu fudud baad raacaysaa. Chromekaaga marka hore tagaysaa. Ka bacdi aniga horta Facebooka Soomaali uu yahay. Setting-ka tagaysaa meesha setting ay ku qoran tahay. Ka bacdi waxay ku keenaysaa halkan oo ah security waa kasii tagaysaa. Marka meesha ugu hooseyso oo deactive your account ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Ka bacdi waxaad leedahay isla qoraalkaas aad u jeediin deactive your account baa ku sii dhufanaysaa ayadana. Marka halkan waxaad gelinaysaa password-kaagii aad ku soo gashay markii hore. Marka password-ka gashid ka bacdi xidh dhaadid intaan mid baad dooranaysaa sababaha aad u tirtiraysid mid ka mid ah. Marka asbaabaha waa iska badan yihiin mid ka mid ah dooran kartaa waad oran kartaa Facebook kalan leeyahay. Haddii aad waa dhigi kartaa Facebook meel ammaan ma ahan. Haddii Facebookaaga la hagareeyay waad oran kartaa my account was hacked. Marka halkaana sababtaad gelinaysaa iyo waxyaalihii aad ku nacday. Marka deactive baad leedahay halkaas ku dhufanaysaa. Before intaad ku dhufan hal mar check garee inaad Facebookaadan aad rabin rabto inaad iska tirtirtid. Haddii aad la jeclaysato rabto inaad soo ceshatid aadan wali halka ka noqo ama back hodhow halka adiga back bay halka kugu qornaan doontaa. Marka back aad ku dhufanaysaa. Laakiin casharka hore u sii wadanaa deactive baan leeyahay. Laakiin adiga waxa muhiim ah in asbaabahan waxaan dhan aad gelisid hay'ad leedahay. Marka wad u jeedaa fadlan dooro asbaab la'aan ma noqon karto ilaa aad asbaab aad gelisid. Anigu waxaan leeyahay I have another Facebook account. Ka bacdi deactive aad leedahay. Haye waxaynu baan sugaynaa daqiiqadaan saas u badnayn. Marka u jeedaa Facebookgaagii has been deactive. Muddo waxaad suganaysaa midkaan muddo 14 beri ah. Waad fahanteen baan u maleynayaa. Midka labaad oo ah asigana description-ka hoostiisa link-ga idin dhignay. Description-ka hoostiisa halkan idin dhignay. Midda labaad oo ah description-ka hoostiisa idin halkaas aad ku dhufanaysaa delete my account. Wada aragtaan baan filayaa. Waan ku dhuftay. Xogaa daqiiqada aan saas u badnayn baan sugaynaa. Wuu is wareejinayaa. Marka waxaad gashanaysaa password-kaaga iyo xarufta halka ku qoran tahay 19. Intaasan gashanayaa ka bacdi isku soo laabano. Asxaabay waan gastay. Sorry ka noqon ku dhuftay laakiin dibana dib baan ugu laabanayaa mar labaad. Intaas markaad dhamaysid ka bacdi okay baad leedahay. Sidoo uu dhamaystiro step your account has been deactivated from the site and will be permanently deleted within 14 days if you are long. Marka 14 beri ka bacdi ba Facebookaaga asigana hawada laga saaraya. Insha Allah cashar ku xiga asigana waxaan ku fiirin doonaa sidii aad Facebookaaga aad aad deactive ka dhigtid si aad active uga dhigi lahayd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad casharkan aad ka heshay like share